السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين waxaynu jecelnahay inaynu qosolno in ka mid daalna nafteena sidoo kale qosolku wuxuu geliyaa awood dheeraada. haddaba waxaa jira dadka qaar haddii aad maqasho magacooda amba aad aragto sawirkooda aad hore ka qoslayso ubaalna waxaan u malaynayaa qofka aan maanteedin sido inaad dhammaantiin garanaysaan. juxa waa qof marka sheekooyinkiisa lagaga sheekeeyo amba odhaxyaha laga hayo lagu sheego aad qoslayso. maantana waxaan idin sidaa hal sheeko iyo odhaxyo laga hayo juxa. daawade haddii aad ku cusub tahay kanaalka kobci garaadkaaga fadlan subscribe saar. mahadsanid. sheekadii juxa macallinkii dameerka. beriyaha ka mid ah waxaa jiray boqor doqon ah oo ku noolaa qasri weyn. wuxuu ahaa boqorkaasi mid haysta dameer yar kaasoo uu doonayay inuu baro wax qorista iyo wax akhrinta. wuxuuna ka dalbaday boqorkii dhammaan muwaadiniintiisii inay baraan dameerkiisa akhriska iyo qoraalka. laakiin wuxuu shuruud uga dhigay qofka ku guulaysta barista dameerka inuu leeyahay jaa'isad weyn. laakiin hadduu ku guuldaraysto ciqaabtiisu waa dhimasho. wuxuu ballan qaaday dhammaan baahiyaha dameerka inta wax la barayo inuu isagu damaanad qaaday. waxaana soo xaadiray dad badan iyagoo damac ka galay jaa'isadda. laakiin doqonnimadooda dhammaantood way ku guuldaraysteen barista dameerka. halkaasoo mid kasta uu ballan qaaday inuu wax baro dameerka. waxaana dhammaantood u dambeeyey ciqaab. markana waxaa soo baxay juxa wuxuu soo jahaystay qasrigii boqorka isagoo naftiisa ku leh in boqorku ka doqonsan yahay dhammaan dadkii la ciqaabay xitaa uu ka doqonsan yahay dameerkiisa. markii uu soo gaadhay qasrigii la kulmayna boqorkii wuxuu ballan qaaday inuu bari doono dameerka akhriska iyo qoraalka. laakiin shuruud wuxuu ku xidhay inuu siiyo muddo dhan 100 sano si uu u barto dameerku wax akhriska iyo qoraalka si fiican. una ogolaaday boqorkii si degdega. una la baxay juxa dameerkii isagoo faraxsan isagoo oo kafaalo qaatay boqorkii xanaanayntiisa. wuxuuna ku noqday qoyskiisii isagoo wata dameerkii oo faraxsan. wuxuuna ku yidhi naftiisa da'da dameerku kama badna 30 sano. si kastana kuma baranayo dameerku wax akhriska iyo qoraalka. wuxuuna dhimanayaa ka hor 100 sano. haddii uu dhiman waayo dameerku waxaa dhimanaya boqorka. haddii aanay dhiman labadooduba aniga ayaa dhimanaya. sidaas wuu xalliyey juxa arrinkaas uguna badbaaday dhimasho kana faa'iidaystay dameerkii dantiisa iyo danta qoyskiisa. weeraha qosolka ah ee juxa laga hayana waxaa ka mid ah wuxuu ka dhaxlay juxa aabihii qayb ka mid ah gurigii uu ku noolaa. kadib wuxuu fadhiistay in yar isaga oo fikiraya. mar keliyana ayuu soo booday isaga oo kula xaaskiisii. waxaan dhibinayaa qaybta gurigaana aabbahay ka dhaxlay. kadib waxay xaaskiisii su'aashay sidee juxow. juxa wuxuu ugu jawaabay waxaan dhibinayaa qaybta aan aabbahay ka dhaxlay. kadib lacagteeda waxaan ku iibsanayaa qaybta kale. marka guriga dhammaantii aniga ayaa yeelan doona. weedha labaad ee juxa laga hayana waxa weeyaan maalin maalmaha ka mid ah waxaa lumay dameerkii juxa. kadib juxa wuxuu bilaabay inuu ilaahay u mahadnaqo. alxamdulillaah alxamdulillaah alxamdulillaah. kadib juxa waxaa ku soo ururay dadkii magaalada iyaga oo yaaban. waxayna weydiiyeen maxaad sidaa u leedahay juxow. kadib juxa wuxuu ugu jawaabay waxaa lumay dameerkaygii. manaanan fuushanayn dameerkaa doqonkaa. haddii aan fuushanaan lahaa waa la lumi lahaa. laakiin wuxuu lumay keligii.